jacaylku waa dilaa. Cilmiga ayaa xaqiijiyay sabab loo dhinto oo jacaylka ka dhalata. Inta badan dadka jacaylka lagaga baxo oo dhimasho qarka u saaran. Xeeldheerayaal cilmi nafsi oo u dhashay dalka Jarmalka ayaa sheegay in jacaylka guuldarraysta uu sabab u noqon karo in qofka wax jeceli uu u dhinto, sababtuna ay tahay dhaawaca nafsadeed ee ay guuldarrada jacaylku qofka ku keenayso oo sababa qalbi jab khatar ku ah caafimaadka wadnihiisa. Xaaladda caafimaad darro ee wadnaha kaga timaada guuldarrada jacaylka oo afka cilmi nafsiga loo yaqaano broken heart syndrome ayaa ay khubaradu sheegeen in ay qofka ku keento gaabis aad u xoogan oo ku dhaca howlgudashada wadnaha. Xeeldheerayaasha Jarmalka ee arrintan daraaseeyay waxa ay sheegeen in qalbi jabka ka dhasha hungada caashaqu aanu sida dad badani aaminsan yihiin ahayn duruuf muddo gaaban waqtiga la dhammaata, balse ay tahay nabar ku maqan qalbiga qofka oo aakhirka sababta inuu dhinto. Gunther Seidler oo ah bare sare oo ku xeel dheer cilmiga dabiibka dhimirka ee psychotherapy ayaa sheegaya in kasta oo muddo kadib uu qofku iska ilaawo xaaladda nafsadeed iyo wadna xanuunka ka dhasha jacaylka fashilmay, haddana aanay taasi ahayn dhammaadka dhibtaas, ama aanu macnuhu ahayn in uu ka bogsaday jacaylkii lagaga baxay, balse ay runtu tahay in raadka caafimaad darro ee ka dhashay xaaladdaasi uu sii jirayay muddo dheer oo mararka qaarkood ah inta uu qofku nool yahay oo dhan. Qoraaga Elena Son ayaa buuggeeda kaga warramaysa ifafaalaha wadne xanuun ee ka dhasha hungada jacaylka. Waxa ay sheegtay in aanay sax ahayn in indhaha laga laabto dhugmo u yeelashada dhibta ka dhalata jacaylka fashilma. Waxa ay sheegtay in ay jacaylka oo guuldarraysta uu qofka ku keeno xaalado nafsadeed oo aad ugu eeg xaaladda qulubka, iyo in qofku uu nolosha iyo arrimaha adduun oo dhan dhinaca taban oo keliya ka eego. Quus iyo rajo xumana ay wehel u noqdaan. Waxa aanay qofka ku abuurtaa daal nafsadeed, cunto xumo, iyo in uu dareemo wahsi badan. Elena Son waxa ay sheegtay in waayo aragnimadeeda muddadii ay ku howlanayd dabiibka dadka xaaladahan caafimaad darro ee nafsiga ah ka qaada jacaylka guuldarraysta ay ka mid tahay in xaaladani aanay ahayn mid sida dadka qaar u haystaan ku kooban da' gaar ah, balse ay tahay xaalad lagu arko da' kasta. Farqiga keliya ee u dhexeeyana uu yahay in dadka korsan ama nolosha wax badan ka fahamsani ay qirtaan guuldarradooda kana shaqeeyaan sidii ay iskaga dabiibi lahaayeen. Siyaabaha ugu fiican ee xaaladan lagu dabiibi karo ayaa ah in qofku marka koowaadba ka fikiro sidii uu u heli lahaa shaqo uu raalli ka yahay oo maskaxdiisa mashquulisa, ama xirfad kale oo ku xidha saaxiibo wanaagsan oo cusub. Haddii kale, sida uu sheegay bare sare Gunther Seidler, waxa qofka ku dhacaysa in uu maxbuus u noqdo xusuuse hore oo aan mar keliya maskaxdiisa ka baxayn, ugu dambayntana dhaawac nafsadeed gaadhsiinaysa. Inkasta oo uu qofku marar badan naftiisa ka dabiibi karo qalbijabka ka dhasha jacaylka fashilmay, haddana waxa uu Gunther sheegayaa in ay marar badan oo kalena ay dhici karto in qofku uu u baahdo cid kale oo dabiibkiisa ka qayb qaadata, maadaama qalbi xanuunku uu mararka qaarkood dilaa noqon karo. Katrin Strickfrost oo ku xeel dheer cilmiga noolaha ayaa iyaduna mar ay ka hadashay xaaladda qalbijabka ah ee ka dhalatay hungada jacaylka. Waxay sheegtay in marar badan ay dhacdo in cisbitaalada ay ku soo booqdaan dad ka cabanaya culays laabta ah, neefsiga oo cidhiidhi ku noqda, iyo dhammaan calaamadaha lagu arko dadka wadnaha lagaga soo boodo ee xaaladoodu khatarta tahay. Dadka ka cabanaya xaaladaha nafsadeed ee ka dhashay jacaylka lagaga baxay ayaa ay Katrin sheegtay in ay dhakhtar ahaan ula macaamilaan si la mid ah sida loo daaweeyo dadka wadnahooda uu shaqada yareeyo. Katrin waxay sheegtay in dadka xaaladda qalbijabka ah ka qaada jacaylka ka xumaaday ay u dhowdahay in ay ka bogsadaan haddii ay marka hore ka badbaadaan dhirbaaxada koowaad ee xanuunka oo khatar badan, una baahan in si xoog ah loola tacaalo. 2 bilood kadib ayaa ay inta badan dhacdaa in qofku uu dareemo kasoo kabasho badan, laakiin dhibaatadu waxa ay ka dhacdaa marka uu qofku dareemo in uu soo kabtay, waayo waxa uu markaaba isku tiriyaa caafimaad qab, waxaana meesha ka baxda dadaalkii ay ahayd in uu u galo ka bogsashada raadadkii ka dhashay xaaladan. Katrin waxay dadka xaaladan maraya kula talisay in ay dhakhtar nafsiya raadsadaan, xitaa haddii ay marka ay u tegayaan ay tahay mar ay isku arkaan in ay caafimaad buuxa ku jiraan. Dhakhtarkana waa in xog fiican uu qofku siiyo xaaladan haysa iyo sida ay ku timi, si ay dhakhtarka ugu suurto gasho in uu fahmo xaaladda qofka, kadibna ka caawiyo kasoo kabashada.